dareenkayga maanta lama soo koobi karo. Qaranimadu waxay ku suntantahay maanta rag shahiida ayaynu dhiigoodii harsanaynaa. dareenkayga lama soo koobi karo. shacabku way xayaadayaan ilaa xalay sidii baan u soo jeednaa. haddii aad dagaal rabtaana diyaar baanu nahay. dareenkayga lama soo koobi karo. waxaan uga soo lugayay baadiyaha degmada la yiraahdo Faraweyni. gidi xalay leel baa soo guuray. sidaad maanta farxadda uga qayb qaatay oo soo lugay. maanta Soomaaliland saan ugu dabaaldegay waxaan soo baxay afartii habeenimo. اعترافكنا كليا نو كان نو soo bari. waxaan leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud inta naga dambeyn karta naga dambeey haddii naga dambeey weydo kartideeda ku tusaynaa. Aragayay Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta horumartay gaadho wax lagu farxo. Sawirro soo dhigay kor baad dareenkaaga. dareenkayga lama soo koobi karo. shacabku way xayaadayaan ilaa xalay sidii baan u soo jeednaa. magaalada anagaale waddanka anagaale waddanku waa amni dadku shacabku waa wada ciidan. adeero waxaan leeyahay dee huwantii halka ka soo buuqbuuqasina qanca adeer annaga adeer u taagan ciidanku iyagoo qaban baa annaga qabanana kayaran wax ka daran intaanu qabanano ay riiri dhiibana iyaga adeer magaalada annaga iskala annaga ilaashanana waxba yaan lagu mashquulin tan afarteena qof ee soo galayna ka soo galay halkaan waxaan leenahay adeer meesha rag baa la dhiigo soo shubay rag ku dhalay annaga u taagan marka khayra dhacayad laga diray adeer magaalada rag baa iska ilaashaday أنا معي كبلا معي وانفع شو عمر أحمد بشرنتي سوماليلاند waxaan leeyahay meel walba joogtaan guuliyo gobonimo guushin waa guushida madaxweynaha qaranka Ciro waxaan leeyahay madaxweyne ilaahay noo ka daayo nabada aan uga harsanayno adiga noo keenay dalkaada qaboojiyay dandamis dalku u baahnaa ayaad ahayd madaxweyne waxaan kuugu baaqayaa inaad nabada aad sii xoojiso adaan kugu noolnay adaan kugu barwaaqadan iyo nimcadan gaarsiiyay maanta waa sanadkii 18 May sanadadii hore way ka duwan tahay maanta inkastoo ictiraaf aysano waxaan leeyahay gobolka nala jaarka ee xamar waxaan leeyahay madaxweynahiisa Xasan Sheekh Maxamuud xasan oo baan leeyahay wadankan waa wadankii shalay toole ka soo baxay maanta kuma baahna calankiisa isaga dhistay qaranka Soomaaliland askarta ciidanka wax walba anaga meel kasta anaga kaaga horeynayna kaaga soo horbaxna mooye kaaga ma dambeynayno waxaan leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud inta naga dambeyn karta naga dambeey haddii naga dambeey weydo kartideeda ku tusaynaa Hargeysa waxaan leeyahay waa qaran uma baahna xamar way ka baxday maxaad naga dambeeyaysaa naga hadha waa inaad naga dambaysan 5 talaabo haddii naga dambeey weydaan anaga dumar laana ayaa gacan birayda ku qabanayna wayna qooy ninka xamar soo galana geeridiisa mooy noloshiisa lama qaadayo Xasan Sheekh Maxamuud haddii laynin hadda dad karti leedahay cad Soomaaliland soo gal salaamaya ugu horeyn ilaahay baa horta ugu horeyn mahad leh marka labaad waxaan u mahadnaqayaa TV-ga Kaw dadweynaha maanta soo banaan baxay ee faraxsan ee 35 sanadood kadib iyadoo la aqoonsaday qaranka Soomaaliland markii ugu horeysay aynu u dabaaldegnay inagoo ah qaran la aqoonsaday oo caalamka kamid ah ayaynu maanta u dabaaldegaynaa way inooga duwan tahay maalmihii hore ama sanadadii hore aynu dabaaldegaynay 18 May u dabaaldegaynay iyo maanta waa kala duwan yihiin maanta waxaynu nahay qaran la aqoonsaday oo dhidibada aastay oo xadadkiisa iyo caasimadihiisa iyo dhammaan dalkiisa oo dhan mas'uulka ah oo ilaashanaya kelmad ayaan oranayaa nimanka reer koonfurka ee xamar waxaan oranayaa waynu kala tagnay warnimayo qoomama la'aada haddii aad dagaal rabtaana diyaar baanu nahay haddii aad nabad doonaysaan nabad baanu anagu jaarka kula noolaanaynaa dagaal haddii aad doonaysaan diyaar baanu nahay waynu kala tagnay nabadgeliyo kala quusanee qoomama la'aada intaasaan iyaga u farayaa ummadda reer Soomaalilandna waxaan leeyahay waynu guulaysanay samirkeennii waynu helay ilaahay baynu ku xamdi naqaynaa dalkeenna aan ilaashanno dhammaan bilays baynu nahay military baynu nahay shicibka iyo ciidanku waa isku mid qof kasta oo muwaadilhi wuxuu arkay ee uu ka shakiyo waa inuu ciidanka la soo wadaagaa intaasaan ku dardaarayaa dadweynaha reer Soomaalilandna aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa maalin ciideed anigu waxaan ahay dadkii u soo joogay dhibaatadii ka dhacday waddanka wax badan baan ogahay dhalinyarada ku dhalatay calanka Soomaaliland hoosteeday waa calanka ilaashada calankiina ilaashada ciidiina ilaashada أنا كبلا وسلام تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئيس Soomaaliland waxaan leeyahay guulayso oo cadawgiin ha jabo
maanta Soomaaliland saan ugu dabaaldegay waxaan soo baxay afartii habeenimo hooyo waan soo dhibay Soomaaliland waxaan leeyahay noolo weliga iyo allaha noolo Soomaaliland horta waxaan qoran lahaa ninkii nacab Soomaaliland oo madda caloosha ku ay Soomaaliland waxba kaagama baahna Soomaaliland waa dad guul iyo go'aannimo leh waxaan leeyahay sideed Sheekh Isxaaqba caloosha waxba isugu qabanina waxaan ku soo bogaadeen aan u sheegi lahaa dadka reer Soomaaliland in ay foodada iska ilaaliyaan oo horta waxa ku soo gabagabeyn lahaaba inaan reer Soomaaliland idhaahdo waxba cudad ha isugu qabanina maanta oo kale dadku madaxa furane jira cadowgin ha jaban magacayga Subeeda Cumar Maxamed Subeeda soo dhoolaa kor baata dareenkaaga kor baata dareenkaaga Subeeda maanta wallahi dareenkayga lama soo koobi karayo shacabka leedahay shacabka guulaysta baan leeyahay waa maalin maalmaha kale iga duwan farxaddeeda lama soo koobi karayo Soomaaliland ana laata lama soo koobi karayo waa maalin maalmaha kale iga duwan farxaddeeda aniga xilliga halka taagantahay markaa waa kaas waxa laga yaabaa saakira soo kala ya saakira xagga salaada soo kala ila 5 meelaha ha qadiyada u buuj ha saadadkayga farxadda la qabsado maalintii gogolaysa waalso waa maalintii labaad xagga ha qadiyada ku buujinaysa ya qadiyada ku buujinaysa ha ugu dambeyn shacabka Jibrin soo xafar dirasa ya ugu dambeyn shacabka Jibrin soo xafar dirasa noolaada Soomaaliland noolaato oo baasatora ayo baarinta maxay dawlad xuska state oo kamay waxa ugu talgashay maanta aniga oo qadiyadayda muujinaya dadkana u tilmaamaya sida Ilaahay doonayo waxa aan leeyahay cirifyada adduunyada hadii calankii laga taagay midabkii cagaarnaa haduu caalamkuba qaatay tawxiidka goortan cuskaday waa cawo Ilaahay cududeenna eebow ka yeel aana iyo nabad cududeenna eebow ka yeel aana iyo nabad ban leh وذكر وروق سنة magaca ku bilaabaya magacayga maxamed ciise la yiraahdaa maxamed ciise oo soo dhaweeyay ka warba dareenkaaga baatay dhibiga waxay kaaga duwatay dareenkaygu wuxuu leeyahay aqoonsiga wan helo galac itiraafte muslimkii maxaa helay aqoonsigii wan helo galac itiraafte muslimkii maxaa helay horta taasi waa taa dareenkayguna boqolkiiba boqol weey waayo farxadda halkaa ka muuqata ummaddu siday u socoto farxad ba halkaa aniga iga muuqata de anna waan la farx geliya anna waan la farxsanahay maxay ku kala duwatay state token 18 maanta iyo kii hore kana xoog weyn aqoonsi buu leeyahay dadkani ka warbaata dareenkaaga aad iyo aad bay shucuurteedu u faraxsantay annagu waxaanu ahayn ardaydii qaxday markii dagaaladii dadkii qaxay marka aad iyo aad baan annagu shucuurteedu aad baan u faraxsanahay waxaan leeyahay liici mayso ciidamadeenu liici maayaan Soomaaliland ha jirto ha joogto liici mayso Soomaaliland liici mayso ciidamadeenu soo ma laabanayaan nacab haluudo hoy waa la xaadsanee Soomaaliland ha jirto ha joogto farudirasa madaxweynaha Ciro madaxweynaha Jerusalem waxa la madaxweynaha sidoo joogo nolow cimriga Ilaahay ku barakeeyo اعتراف ku kare waxa leedahay اعترافكنا kaliya noo keenay noo soo badi waa sidoo maanta walaa dareenkayga lama koobi karo dareenkaygu aad baan faraxsanahay dhamaan waxaan ku faraxsanahay dhamaan ciidanka qaranka Soomaaliland meel kasta joogan meel kasta joogan iyagoo nabad qab lagu marayo hadda ay tiimeeyay leeyahay dhamaantiinba sidoo horta ciidanka Jibrin Soomaaliland ku maraya quwadii dalka toor dareenkayga wallahi lama koobi karo aad baan ugu faraxsanahay waxa shacabka Jibrin fardir shacabka Jumhuuriyadda Soomaaliland waxa leeyahay dhamaantiinba farxad ku ciida oo maalin ballaaran maalin munaasabadena maalintii ugu fiicneed hadda ay tiimeeyay leeyahay dhamaantiinba dareenkaygu maanta aad iyo aad buu faraxsan yahay
يعني فرحة ماشها إما كان كفر حسنا هينا موقال كيما كيم موقدة تدوينها هي عيدا كبله آر سوق صباحي جوابها السوقيني علن كي وضلوا لا علن كود الستة عاد بان كفر حسنا هاي مثل بعضنا وكفر حسنا هذا مر هدي ما طلعنا اعترافه دولة بدين اعترافين وإنه عالم كي كم نقولنا والله إن أقون صبي ومدحوينه سواء عيد الراعين ميل والبتجايو الحمد لله رب العالمين تانا عادي بان وفرح سنة هاي إن مالك كستأ وحنا كوري ما توكلنا دوا مالوين أو دوا حويه دتكو عاد بو مالنتا waxaan ku اعترافka dartii maanta aad baynu ma garanaysaa aad baynu shacabkii badan ma garanaysaa marka waxaan ku mahadnaqayaa ciidamada kala duwan ee soo maraya meesha nooca dadweynaha isugu yimi ee calamadii wada lulaayay ee calamada wada sita ma sha Allah leeyahay ma sha Allah alxamdulillah rabbil alamin اعترافkaana ilaahay mid inagu anfaco ده هينوقع دقو يقدن حاس شعبك تورد ولا فرود درسها waxaan fariin u dirayaa يعني sida ay marka aad ma garanaysaa u soo dhaweyseen calankiina u sidataan u soo dhaweyseen de ku adkaysto oo yani aad ugu ixtiraama intaas anaga ku socod weynaan ku soo dhaweynaa sawirta ciidamada kala duwan ee bariya gaardiska waxaan u arkaa de si caqiibo leh oo de ma garanaysaa farxad leh oo qiimo iyo qaayaba aad iyo aad u leh ayay de igu muuqdaan ma garanaysaa marka ayagana ilaahay ha guuleeyo waa meel kasta oo yani cadawgu inaga soo wareey waa nimanka inaga de ma garanaysaa inaga hor taagan ciidanka de meel walba qayb kasta oo ma garanaysaa laga soo dusi kara Suuriya kasta laga soo dusi karaba waxa weeye de ragga inaga ma garanaysaa inaga gudbanay inaga hor taagan marka ayagana Allah ha guuleeyaan laan shicibkana Allah ha guuleeyo calanka iyo calankan ilaahay inoo barakeeyo اعترافنا الله إنه هجاتيو دنبيجنا الله هداف دنبيج والدكنا هدافه مسلمين ترى إلهي قوي ودرك لما سوكوا بكرو وحاول يسولوا ببادية دقمة الله هذا فرويني قد حلال البس وجوراي سياد بات فرحته وقف قاته وصلوا ما شاء الله والله هالقن وحن دقات وقصلامي مدحوينه سومالان شعبك تبرش الفرود شعبك وحن ترى إذا نقول لكم إن ما قالوا ما شاء الله الحمد لله كاجد وتر سديتوك بيستيتوك والله وبالله والله هذا الملأ مسوكوا بكرة وصعود ودياب السلام قول يا الله السلام يا استوبيا دم مكبحين هذيك مكبحين تصل هيا ما فهمتي هل كنا حق الله هاي أو لأنه عاشق يعني يبي عرف تبديه شركة يقعدونان شراء عذر جمو قينه كعد محاكي على سمالنا عذر بالوين يا عاشق يا الله ذي تبتي الليلة قسكر وقال له حي لا أنا كلك على الواب بلا سمال لا أنا يقول قبل الله أفتضاصنا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلامة يا عيد ماذا قرنك السمال لان ملك استوي شوغان هاتشيران وهاتشوغان هذا ويجو هاتشبو هذا ويجو هاتشبو هذا ويجو هاتشبو إن شاء الله بإذن الله كريم دتك وحن كل عيل بحيبة نقولنا ولي جاي تشري شوغا يا وحن كل سمال لان عالن كذا يا توحيد كذا يا عيد كذا قرنك يا عيد وحن كل مال والأوكستي كعيلين بلاي بك عيل تريا حتى الشيخ محمد وحبا ينقصوا عن بن وينقصوا هبيام عالن دوشيد عمريgiisa dusheeda ku dhamaaday intuu soo eegayay marka waxa way caalanka iyaga u jiro joog baan leenahay caalanka iyaga cawaalo cirka noo mar oo caalanka iyaga cawaalo cimrigaagu haraago cadawaagu cagta hoostiisa yaa dareenka lama soo koobi karo shucuurteeda aad iyo aad maxay u sareysaa ma sha Allah tabarakallah ha joogan Soomaaliland ha jirto guulayso ay kaaga duwatay isteetook lama qiyaasi karo baan ku shucuurtayda miyaan qiyaasi karaaba hadli karaaba dareenkayga aad iyo aad baan u faraxsanahay اعترافkii baan maxay noo yimi ما شاء الله صار نوقص وده إلهي نبتقلي هذا نحن نقعد كيو إلهي نوبر حاس شعبك تبرد ولا فرود درس أنا دريا سرعان وين أو مناقصة بان دريا هتشيران هتشوغان هيسكتير سنادان محي هيدا دي محي هيدا شيران ناراد من لاي هذا قلنا هتشابو قرن وحنا أبوانا قرن كجمهورية الصومال بعديك الرعدي قفدور دي من يوانو دي من
qaar baa ma calanka 24 saacad habeenka iyo maalinta isku soo wareegtaan dhulka maraya waan sitaayo igu maago yiraahdo maxaad ku cuntaa maxaad ku heshaa waxba idin kama galin ma ku waxaan ku cunaya waxaan ku helay waxba idin kama saarnaadeen sheegtay qadiyada weynta oo sheegtay qadiyadaydu hayni weynta baan u sheegay qaar bay gacan ka gaadhaan isku dilaada nacabka de kuwa ka xun ma garanaysaa haade marka halkan waxaan ka soo tirinayaa kabayaan u tirinayo ciidankiya sanab ciidanka doomari baa ciidankiya sanab ya deeyakan waa isku miduune marka hoyaalay 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 hoye deyeliyo kumaymanin maynabadu dheldhele dhaantiyo kumaan helin ciyaar calanka dheldhele warrag baa u dhintayo rag baa waayay dhayahaye rag baa u dhintayo rag baa waayay dhagihiye rag baa u dhintayo rag baan dhiciska noolayne rag baa u dhintayo rag buu cunay dhurwaagii rag baa u dhintayo rag buu cunay dhurwaagiye dhudhumada inbaa uga jabtood saartay dhayahaye giblaya kumaymanin maynabadu geerare guclayo rafaad bay ku timid geeriya dhiige guclayo rafaad bay ku timid geeriya dhiige kun lixlaa la gowraco rag baa ilka gees maraye kun lixlaa la gowraco rag baa ilka gees maraye rag baa gaadhiyaa lagu xidho jidhay geedaaye rag baa gaadhiyaa lagu xidho jidhay geedaaye gabal baas intuu dhacay maxaa wila gowracay goblantay hooyadii aabbihi god lagu jiiday goblantay hooyadii oo aabbihi god lagu jiiday waxaan leeyahay Soomaaliland guul iyo gobonimo halkan haddii codsigaygu gaadho madaxweynaha qaranka iyo madaxda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland codsi baan wataa maanta aanan hore u wadan waxaan doonayaa marka u horeysa horta in lagu daro ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama ku jiro hal abuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan doonayaa munaasabadda qaranka munaasabadda 18 May madaxtooyada in la igu casuumo oo la iga yeedho dareenkayga Soomaaliland maanta xafladda ka soo qayb gal aad baan ugu faraxsanahay waan ugu bishaaranahay hambalyo bayna leeyahay Soomaaliland anoo wali jijiga ka socda jijiga ka timid jijiga ka timid soo kala jijiga ka timid dhilbiga haa in kasta la yoogay wala soo dhan karaa shacabka Jamhuuriyadda Federaalka ya shacabka Jamhuuriyadda Federaalka hambalyo way maanta uga balaawnay si madaxweynaha Soomaaliland marka maxaa leedahay ya waxaan leeyahay qaranka iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta horumartay gaadho wax lagu farxo wareegsan magaca ku bilaabaya magacayga walaa waa Fadxiya ugu soo dhaweynaa ka warbaata dareenkaaga lama soo koobi karo wallahi dalkayga nabada ku faraxsanahay inaan dadkayga la farxano waan jecelahay inta soo bagso dhaxleekaatay wadakaaga ha waligeed dhinac uma dhaafin Soomaaliland saxbaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka ku dhashay ha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka waxaan leeyahay aad iyo aad bay noogu dhacday waxaan leeyahay wadannada kale ee reer Soomaaliland waddankiina aaminsanaada gaar ahaan gobolkan ka soo jeeda Boorama ha waddankiina aaminsanaada nabadu waa shacabka Jamhuuriyadda Federaalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro waan salaamayaa wakaas waxay kaaga dawday 18 ka sanadka waliga eedimay ma soo bixin eedimeyga aniga maanta ku dhex jira noloshay foorifan eedimay ma soo bixin eedimeyga aniga dhex boodaya ee qadiyada soo saartay maanta waxa ku qaaday qadiyada Jamhuuriyadda ugu horeysay magaca ku bilaabaya xamse baashaale magacayga saax xamse baasha ka warbaata dareenkaaga dareenkaygu wallahi aad iyo aad buu kaxsay suurta Soomaaliland waan salaamaya askarta militariga iyo dadka oo dhan ba shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa faroodinaysa shacabku waxa leeyahay hambalyo guuleysta waxaan Ameerika soo joogtaan guuleysta gobolada maxaa ka dabaaldego waxaan leeyahay waa
waa ciideennii wanaagsanay weeyaan maxay kaaga duwan tahay dhiidii hore iyo dhiidii maanta kaaga dhiidii hore waxay kaga duwan tahay waayo maadaama qarnimadeeda xusanno intaa loo soo hago dad dhanba dhiigga u huray inaan soo halgelnaa waa muhiimad sax markaa intaasaan leesaa wuxuu dareenkaygu yahay 40 jir baan ahay weligay iyo allahay maantaan soo baxay oo aan igu horeysa Soomaaliland waan jecelay laakiin waqti uma aan helin markii hore maanta laakiin qadiyad bay wada ninka Cabdikariin la yiraahdo heestiisa ay soo kicisay iyo jeceyla Soomaaliland jecelahay marka man gabi kara gaba yar baan doonaya Soomaaliland waa laf dhabartay dadka way iga xigtaa Soomaaliland waa laf dhabartay Afrika way iga xigtaa guushay horseeday baan ogahay dadka way iga xigtaa alla Cabdikariin waan ku duceeyay dabka hajiro sida banka u beeran sida buuraha u yabal allow tarankaaga 7 wiilka yeel casiiskan ku baryay caafimaad ku waar dada waxaan idin sheegayaa ambase aan ku gabagabaynayaa dada waxaan idin sheegayaa ambase aan ku gabagabaynayaa Cabdikariin qabiil ma yaqaan qolana hadalkeega daa Cabdikariin qabiil ma yaqaan qolana hadalkeega daa hooyo maanta qadiyad bay wada maanta dareenka shucuuradu iska sideed May aad u farxan iyo bulshada reer Soomaaliland isku soo baxay iyo macaan dareen leh iyo macaan qalbiga ku taabanaysa iyo macaan bulshada reer Soomaaliland ay dareenkooda iyo wicooda ay ku wada faraxsan yihiin iska 9 May waa macaan bog laabatay ومن نتكو صباحي كل عام وانتم بخير بان تنوم بان تاغنا كودي marka mar walba dhashayda iyo inta aan la dhashay oo dhan waxaan qori qaadan ma laha deednaagu waxa ii tahay aniga waxaan aan la koobi karin ciidanka ka dooranay warida Soomaaliland say ku saabsan haba sheegi ila ayoohin maamo waan ku seexdaa waan ku soo toosaa dhal ciidan baan ahay aabahay baa ahaa ubadkaygii ba galay ilmahaygii ba ku dhintay wiilkii anigu aan dhalay ayaa ciidankaas dadkii raacay marka alxamdulillah shukran maamo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي ما هذا مركه هراء مركه حكتو وحن مهد إلنا مدحوينا جمهورية الصوماليلاند مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عرو مركه حكتو وحن فرينو دريا عيدا كقرن كجمهورية الصوماليلاند حنا يأذي أدباد مهد سنتهين هير كمان تنسوق قرني دي كان سوق قرسي عدوينو هجبا عدوينو عقد هاستوان لا يهاي شعبك جمهورية الصوماليلاند وحن لا يهاي قولي يا قبنيمو مدشا ما أنت قرصة بدن إلهي بيسكو كان سبحانه وتعالى إنه الصبابي الحمد لله حلا يقول إسته رأيك يقول عادي بو أنا فرح سنة هاي ما شاء الله عيدا كيجي نبتقليه شعب كيجي قصور دماضي حلقة السلام وحن قدر يا عيدا ماذا كل الدول ملك استيشوغان وحن ليه هاي إن حياة هولين عافماد يعمر درن يعدو قصين وقيل على لسان عادي بود مهد سنتين حلقة كل السلام وحن قدر يا مدحوينه ياشي هراء كود انتنا الله ونحرسته شننا عيدا ماذا بو Soomaaliland oo dhan dhamaan halkan ka salaamaya jinnadeena hore u dhintay Allah u naxariisto ma leeyahay wixii jaran biliiska soo maray militariga soo maray migration-ka soo maray ciidamada badda soo maray asluubta soo maray aad iyo aad intii dhimatay Allah u naxariisto inta nool waxaan leeyahay guuleysta aad iyo aad baan dalkayga u jecelahay waxaan ahay askari buuxa ma sha Allah caafimaad qaba dhulkiisii jooga alxamdulillah
waxaan ku yidhi caafimaad baan ku soo toosaa caafimaad baan ku seexdaa shacabkayga sharafta leh ee aad iyo aad u jecelahay baan la dareenahay iyo ciidamadayda halkan kale salaam waxaan uga dirayaa dhakhaatiirta caafimaadka dhakhaatiirta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay mudane madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay heerkaadna gaarsiisay farxadaadna siisay aad baad u mahadsan tahay iyo madaxweynayaashii hore oo dhan waan salaamayaa intii dhimatayna Allah u naxariisto halkan kale waxaan ka salaamayaa dhakhaatiirta caafimaadka meel kasta ay joogaan kuwa carruuraha noo daweeya kuwa bilaa daweeya maxay tahay dadka waaweyn dhakhtarka maasna waan ku daraya dhakhtarka maasna aad iyo aad baad mahadsantahay waa dhakhtar aad u fiican maan aad baan idin salaamayaa bulshooyinka Soomaaliyeed marka maanta waxaan joognaa madal weyn maalin qaaliya 18 May baynu joognaa oo maanta barwaaqo bashbash noogu soo dhawaatay war maanta waxa la dhalinyarada Soomaaliland wargeysiga isaga dhulkiisa nabad dhaliye war adduunyadu gaari iyo dib mooya qaxar kale la joogtay waxa la yarafaada geesigu ugu horeynta magacayga waxa la yiraahdaa Xiis Maxamuud Xaaji Xasan Khaliif xiiso soo dheela kor dareenkaaga baata dareenkayga maanta lama soo koobi karo maydi baa si nabadgelyo ugu soo dhamaatay cadawgeennii baa jabay haddaba waa maxay maydu waa maalintan xornimada la soo noqonay waa maalintan golitaaga aanu la soo noqonay waa maalintan safgaradka la soo noqonay waa maalintan calankeenu gaar isu taagay waa maalintan waxaan ku uri maydu dhiig bay nagu taagan tahay dalka waa loo qaxay ciyaar maaha dadka waa la leeyahay diyaaraddu warshayda madaafiic asalina dhacay waxa ku cid walba waxa ku haduu bedelkeeda looma kala habeeyay haliyaa u dhintay haliyaa u dhintay la oran jiray asam dibaanu la soo noqonay maanta maalinta ay looga duwan tahay waxa weeye dadkeena la xasuuqay xornimadii aanu la ilduufnay ee 60kii imraadooryadii Faarisiya markaanu galay haduu bedelkeeda leeyahay maxmiyadda Ingiriiska ila gumaysanaysan qoos baxlaynu calankeena la ilduufnay aanu isnii waxa doonataan haduu bedelkeeda leeyahay dawladnimo ee inaga aynu noqonay waraabihii waxaan ku raa isri wasbada doolaysa ya waxaan leeyahay alxamdulillah rabbil caalamiin maanta calankeena baanu gaar soo cusubnay si wanaagsan oo kula maatay